goor 4 saac bar 5 saac bar meelaas ay tahay dhiig baxo u dhintay cunugeygi ina xaq oo walaalkay helo aan ku dhiig dilay ina helo ilaa iyo 3 qof ayaa dhimatay haweeney kale oo caruur haysatana waxaa soo gaaray dhaawac kadib markii ciidan la sheegay inay ku labisnaayeen dareeska militariga garabna uu ahaa ciyaal weero ay rasaas ku fureen xaafadda Siliga aaga ceel Sablaale ee degmada Dharkile ee gobolka Banaadir dhacdadan argagax leh ayaa waxa ay qalqal gelisay dad badan oo ku nool aaga xaafadaas waxaana qaar kamid ah dadka dhintay ehelkooda ay sheegeen in dhammaan dadka dhintay rasaasta ay haleeshay iyaga oo ku sugan guryahooda waxa ay dalbadeen iyaga oo ay ka muuqato murugada sida ay uga xun yihiin geerida caruurtooda inay helaan cadaalad iyaga oo hooyooyinka qaar ay muujinayeen rajo aan fara badan ku taagnayn oo ku aadan xaq u helida caruurtooda maadaama kuwa badan oo ayaga ku horeeyay ay waayeen cadaaladda jiifay xabadii markay bateen waa soo kala cararna guriga soo galay wiilkana markuu afuray oo aado wiil oo 10 la qaadayo dariskeena oo aado xabadii markay bateen wuxuu isir guriga carar guriga inta uu soo gaarina nimankii yimideen waana la heleen xabada wax aan ka qabno xaqana ma jirin warafna ma hayno waraf ku dhacay waa ku dhintay ma dhahay xabada lagu garaacay haboon gabar gurigeeda irdeeda joogto oo soo armagta oo ku dilin iyada la leef garaacay wax nooga la qabahaayna hadda oo ilaahay og yahay ma jira ilaahay wuxuu og yahay ma sheegi karo laakiin wax cadaalad oo helaayo ma jirto wixii ugu horeeyay cadaalad waana gurigan ku dhaawacan isbitaal loo qaaday wiil yar oo gurigaas oo guriga dhinacaas ka saaran wiil yar ku dhintay wiilkay la soo duugay waxay bacdo shalala ayarta bismillah maxaa dhacay aan soo istaag cunugii meeshan yaala arkay maskaxdiis inta taashab babaqo ishu ku haye gadaal babaq korkiis xabad ka soo baxday xabadda meeshan ka leeshay halaha markii inta ka gashay milaan oo baxday maskaxdayga ku dhacday saas oo dhacay cunug yar oo ani dhalay oo taagnaa asna xabadii cunugaas ku dhacday baan dad kale asna ku dhacday meeshan wax ka gaaray asna beek sartay asay wiilka jeedan degan asna waa ku dhintay xaafad degan maamay ku dhaawacantay xalay meeshan masiiba ka dhacday umad badan aan ku baabaaday nimankii xabaday xaafadaha u qaybsheen ilmo yar yar meesha ku haystay ilmihiin la soo cararay halkaana imaaday qaylida ayadoo yeeray gurigan xabaduhu ay ku soo dhacayaan meeshaas ilmaha madaxa uga celinay waxa yar kadibna waxa igu xigtay walaalkay inuu dilay waxa codsanaha marka ugu horeyso ina xaq walaalkay helo aan ku dhiig dilay ina helo waxa degan yahay iima dheero 3 lootada afraad oo ka soo duulay nimanka ciidanka ahay hebel ma dhahay niman ciidan oo badan ay hayaan ugu yaraan 5 iyo 6 lootada afraad ee ka soo duuleen oo laamiga inta ii jirta kaskaas halkaas ay noogu yimaadeen goolada albaabkeeda waxaan dhahnay walaalayaal saan sameeyo jiingada deganna xabadaha hoos u dhigin ciyaalka daartiin bursada laakiin xabadaha hoos u dhigin xabadihii hoos u dhigeen qof loogu aabayeelay habeeraat ma jirin meeshan xalay dhibaato weyn ka dhacday hal wiil oo walaashay dhashay meeshan ku dhintay gabar yar waa ku dhaawacantay oo ilmo yar 4 cunug haysato isbitaal Madiina jiifta ma fahmino wiil yar oo dariskayna oo gabar iyadana qaraabada waa koofanahaas ka gashay madaxaas waa baxiyay waa ka fuqiyay ma fahanteen maxaan ku dhigi karaa guriga saan oo rafaadsan yahay waa ujeedaa xabadaha ka socdo guriga gaarkayga sariirtiisa korkiisa martay xabadii banaankii lagu soo bursado wiilkayga masaajidka ka soo baxay masaajidka nafo guriga la gudbay halkaas oo ku wareer halkaas ku dhacayaan laga soo qaaday goor 4 saac bar 5 saac bar meelaas ay tahay dhiig baxo u dhintay cunugeygi waxa kale oo uu sheegay Xuseen Abshir oo kamid ah dadka deegaanka in la watay ilaa iyo 3 dhalinyaro ah kuwaas oo xilliga la wadanayay waliba ay ka muuqatay dhaawac tooreeyo loo geystay xalay waxa dhacday caadi ah dhacday waxa 3 nin la watay ayagoo dhaawaca oo tooreeyada waxa loogu dhameystiray waxaan cadeynayaa in hadda macmuustooda iyo kabahooda halkan yeelaan saacadan la maraayo 6 saac waxa gacan laga hayo malaha ayaga wateen nolol iyo geerma gacan kuma hayno dhalinyarada ciyaalka weerada ayaa qatar badan waxay ku hayaan dadka shacabka ah ee ku nool magaalada caasimadda ah ee Muqdisho degmooyinkooda qaar oo ay farabaan ku hayaan ciyaal weerada ayaa xilliyada qaar waxa soo saacida ciidamo ka tirsan kuwa la sheegay dawladda federaalka Soomaaliya
taas oo ugu dambeyntii sabab u noqota geerida caruur fara badan oo ku nool aagga ay isku qabsadaan. Cabdinaasir Socdaal, Bilan Radio.